بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن waxaan rabaa inaan idin siiyo update xaaladihii ugu dambeeyay oo ka soo kordhay cudurka coronavirus ee wadankeena. Xaaladaha cusub tiradooda waxay gaarayaan 55 waxaa lab ah 37 waxaa dhidig ah 18 afartan waxaa geeriyooday 5 qofood. tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa 44 qofood. waxaa ka bogsaday 19 qofood. tirada guud ee bogsatayna waxay noqonaysaa 94. walaalayaal cudurkii waa faafaya saad arkaysaan maalin walba maalinta ka dambaysa nambarkii waa sii kordhaya. waxaa waajib nagu ah inaan kulligan ku wada celcelinno cudurkan in laga hortagay inay aad muhiim u tahay in la xakameeyo in maaragtay dadka ay dhageystaan talooyinka caafimaad ee khubarada caafimaadka ay bixinayaan aad ayay muhiim u tahay in la kala dhowrsado inaan la isu dhawaanin inaan meelaha ciriiriga la isugu tegin in qofka markuu calaamadihii iska arko uu raadsado goobihii caafimaadka si loola taliyo inuu raadsado inuu wacdo nambarkii loogu talagalay ee gobolladoo dhan ka jira Soomaaliya inuu raadsado maaragtay talo caafimaad qofka markaas qof khibrad u leh dhakhtar jooga uu la hadlo in gacmaha la dhaqdo in maaragtay dadka cudurrada chronic qabo si xanaano gooni ah la siiyo oo dadka laga dhowro oo aan loo dhaweynin dadka looga shakiyo ama sideedaba isku dhawaashaha xogaa la soo yareeyo. waxay nooga baahan tahay taxaddar zaa'id waxay nooga baahan tahay inaan gacmaha isqabsano oo hal jaha aan ka soo wada jeedsano. cudurkan waa qof walba ku dhici karaa meel walba ku dhici karaa jinsi walba ku dhici karaa ma kala laha xuduud. waxa kaliya lagu xakameeyo dawlado waaweyn ku guuleysteen waxa waaye inay maaragtay sameeyaan inay xakameeyaan oo socodka yareeyaan oo diyaaradihii celiyaan oo isu socodka iyo meelaha buuqa la celiyo in waxa hadda la qaybiyaa ay dawladda ku dadaashay iyadoo kaashanayso hay'ado kale in la sameeyo afxirka mask local ah dadka loo qaybiyo. waxaan isku dayeynaa inaan badino oo markaas aan dadka si adag ugu adkaynaynaa ugu waaninaynaa in qofka markuu baxayo ama gaariyada raacayo gaadiidka dadweynaha oo ciriiri ah aan ognahay ama uu marayaba meelaha qaarkood inuu afka xirto inay tahay wax aad iyo aad taqaatiirta ay uga shaqeeyaan. teeda kale waxaan isku dayeynaa aan inta karaankeena inaan sidii cudurkan baaristiisa loo sameyn lahaa number weyn loogu sameyn lahaa haddii alla idmo laakiin waa bulshada inay hal meel ka soo wada jeesata oo qofka uu ogaada waxaan inuusan xuduud lahayn in yacni qof kasta uu ku dhici karo adigana aad gudbin kartid xitaa haddaadan lahayn calaamadihii cudurka uu lahaa. marka insha allahu tacaala waxaan noo rajaynaa khayr ilaahay cudurkan aafadiisa dhibkiisa uu naga haayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.